waan idin salaamay dadka Soomaaliyeed waxaan arkay fariin internetka ama Facebooka taas oo oranaysa Beyle ayaa kaabeedka maanta wuxuu diiday in ONLF laga saaro terrorist arrintaasi waa been weeye arrintaasi waan beeninayaa Soomaalidu waxay tiraahdaa af jooga looma adeego waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha oo arrinta muhiimadeeda siiyay oo keenay kaabineedka maanta in arrinta la qabto waxa meesha ku jira waxa weeye aniga waa si aan ogtihiin marka wax la discuss kareeyo ama wax la naaqishayo ama wax la falanqeynayo agenda item baa jiro oo kaabineedku leeyahay agendaha item ka weyn kuma jirin markii aada business la galay ayaa arrinta la keenay aniga fikradan keenay waxay ahayd in arrintan muhiimadda ay leedahay loo yeelo oo agenda item kayaga lagu soo daro oo sharafta ay leedahay maqaamka gaarsiin la gaarsiiyo ayaanu taan u ka hadlay ma suuroobayso aniga Cabdiraxmaan Beyle ahaan inaan walaalahayga ONLF aanu haysto terrorism ma dhacayso mana dhici karto qof waliba Soomaalinimadiisa waa la yaqaanaa aan wax ku suntanahay ina dani Soomaalida kamid ahay Soomaalidana wanaageeda jecel ONLF Soomaalida dagaalantay ee wadankooda soo xoreysay ee maanta nabadgelyo dalka kulano ay yihiin marka khalad in la isfahamsiiyo ama la faafiyo waxaan sax ahayn ama si kale loo dhigo arrinta waa diidaya walaalaha ONLF waa soo dhaweynayaa ayaga laftoodan isnaqaanaa aan qaarkood soo wada shaqaynay rag waaweyn oo is yaqaan baan nahay ha noolaadaan waana soo dhaweynaa laakiin anigu taas baan keliya baan arrinteedu ahay aad iyo aad baan idin salaamay